سلطان سعيد وكمل بعض دقن كجمهورية الصومال ayaa maanta hadhay basharafeed ku maamusay boqor Cismaan Buur Madow oo dalka dibadiisa maanta ku soo noqday isla markaana si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa gaar ahaan madaarka Cigaal International Airport munaasabadii qada sharaftaasi kadib waxa halkaasi ka hadlay Sultan Siciid oo uga mahadceliyay dhammaan dadka reer Somaliland sidii weyneyd ay u garab istaageen boqor Buur Madow iyo sidii cajiibka ahayd ee magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland loogu soo dhaweeyay boqor Cismaan Buur Madow waxaanu yiri dadka sharafta leh ka soo qayb galay xafladan maanta sida ogtihiin maanta waxayna soo gaadhay oo nabaqabina ku soo gaadhay boqor Cismaan oo Maxamuud Maxamed oo muddo badan dalka dibadda kaga maqnaa dadka soo dhaweeyay ee reer Somaliland ee airport-ka ilaa shalay joogay ee aanu kala hadhin nooc kasta ay tahay hadday tahay wasiiro hadday tahay culimaaudiin hadday tahay ururo hadday tahay xusbiyo hadday tahay dhalinyaro hadday tahay haweenweynaha hadday tahay miidiyaha dhammaan dadka ka soo qayb galay oo ay madax dhaqameedku ugu horeeyaan Somaliland oo dhan dhammaantood waxaan uga mahadnaqayaa sida qiimaha iyo sharafta leh ee ay uga soo qayb gasheen soo dhaweynta boqor Cismaan oo Maxamuud mid aan la soo koobi karin oo niyada ayaan idinku mahadnaqayaa boqorku wayna soo gaadhay wuu hadli doonaa maanta wuu soo safray airport-kana hadal buu kooban buu ka yidhi hadalka waxaynu u dhiganaynaa dib waxa jiri doona xaflado dambe iyo casuumada dambe oo istaba jooga kuwaasaynu boqorka ku soo dhaweyn doonaa mahadnaq maantan u soo galay qadadan maanta waxa samaysay beesha habar jeclo iyo soo dhaweynta qadada waxa sameeyay iyaguna aad baan dadkii ka shaqeeyay ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad mahadnaqaasaan maanta ku daynayaa guddiba qabanqaabaa jirta taasaynu ka warqaadan doonaa berrito iyo saad dambe iyo maalinta ka dambaysa intaba xafladaha jira xafladahaasaynu ogaan doonaa sidaasaan ku soo gaabinayaa aad buu maasantiin wabillahi tawfiiq macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha Somtel ama dahabshiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarlii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121 markiisul caafiya waa xarunta ugu weyn geeska Afrika ee isku daweynta dhirta iyo daawooyinka dabiiciga ah waxaana ku jooga Dr. Mustafa oo muddo dheer ku soo jiray culumta daaweynta xarunta markiisul caafiya waxay ku taallaa bartamaha magaalada Hargeysa gaar ahaan masjid jaamaca weyn qabladiisa ama ka soo horjeedka dhakhtarka Cagaweyne ama Boobaal wixii faahfaahin dheeraada waxaad kala xidhiidhi kartaa telefoonada shaashada idinka muuqda